السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكن ومجن ميديا أنا وحنا هي عبد القادر محمد كسر دوادة وركها بينما قد بدأت كده وندو تان هدوء بوين الرالي كان غضوا وحاكم ذا قلها شعب كبرلمان كجمهورية فدرال كاي الصومالية وما أنت كوكلا الدراري كلنا كلها هاي المقالة عاصمة مقدشو كدي مركز لسكواف قرن وهي جنتي اللوجو دودي لا كلها قاسي magaalada Jigjigaana waxa gabi ahaan bas beelay suuqa lagu magacaabo Taiwan-ka halkaas oo habeennimadii xalay ahaa uu qabsaday dab kooxda al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada Itoobiyaanka ee ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee ADMIS oo ku dagaalamay gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed akhbaaradka caalamkana waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo ku dhawaaqay in dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin uu booqasho lama filaan ah ku tagi doono wadanka Turkiga qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan baahinteena wararka fiidnimo ee saaxiibayaal u diyaar garooba marka hore waxaan ka codsanaynaa haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato Facebook iyo sidoo kale YouTube baraha aan ku leenahay inaad rukumato si aad ula socoto warbixinada iyo sidoo kale dhacdooyinka caalamka ee aan si maalinle ah idinku soo gudbin kulan ay maanta magaalada caasimadda ee Muqdisho ku lahaayeen xildhibaanada golaha shacabka ayaa lagu kala dareeray kadib markii la isku fahmi waayay ajandaha kulankaasi looga hadli lahaa qaar ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo warbaahinta la hadlaya waxay ka dhawaajiyeen in guddoonka golaha shacabku uu ka tallaabay xeerosaadkii golaha u yaalay adiga xildhibaano kale raba adiga hadaan rabin xildhibaanada kale rabaan qofka aan rabin lama haysto xildhibaanada rabo kuwaas xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa waxaa la horgeeyay mooshin degdeg ah oo ay keeneen 30 mudane oo ka tirsan golaha shacabka mooshinkan oo loo gudbiyay afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe ayaa ku saabsanaa in ajandaha kulanka maanta lagu kordhiyo mooshin ku aadan la xisaabtanka iyo habsami u socodka howlaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe oo furay kulanka ayaa ka hadlay mooshinkan isagoo la wadaagay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya si ay cod ugu qaadaan in ajandaha lagu daro ama laga tago xildhibaano tiradoodu gaaraysa ilaa 30 xildhibaan ayaa dalbaday in ajandahan lagu kordhiyo ajandaha kale oo ku sheegeen isla xisaabtanka iyo habsami u socodka golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayuu yiri gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe sidoo kale waxa kulanka laga akhriyay warqad ay soo saareen 30 xildhibaan ee mooshinka keenay mudana gudoomiye habsami u socodka maamulka golaha waxa ka jira tabasho xoogan oo xildhibaanadu ay qabaan sidaas darteed waxa noo muuqata inay lagama maarmaan tahay in maamulka golaha lagu soo celiyo u hoggaansanka dastuurka iyo sidoo kale xeerosaadka golaha shacabka ayuu yiri xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo ka soo jeeda maamulka Jubbaland waxa kale oo uu ku sii daray waxaan rajaynayaa inaad nagu aqbashid soo jeedintan oo waafaqsan xeerosaadka golaha shacabka dhinaca kale xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah xubnaha saxay mooshinkan ayaa madasha ka hadlay waxa uu aad u jeediyay guddiga joogtada ah ee golaha shacabka baarlamaanka sharafta leh warqadda uu halkan ka akhriyay walaalkay Cabdirashiid Xidig annaga ayaa soo qornay waxaana loo keenay warqad ay guddiga joogtada ah iyo xukuumadda ay isku shubteen shaki weyn ayay taasina gelisay ayuu isna yiri Jeeso tiirka xaq looguma leh guddiga arrimaha gudaha ana ka tirsan wax warbixin ah oo aan ka hayo wasiirkaas ma laha sidaa awgeed wasiirka iska laabto ajandaha aan ka dhigano inaan baarlamaankeena isaxno oo aan halkan albaabada xirano oo anaga wixii laga qaldan aan saxno markaas dalkan asnoo saxmaya ajanduhu marka sharciyad ma waafaqsana ee doodan ay soo diyaariyaan xildhibaanadu waa inaan waxa naga khaldan saxno inaan ku koobano ayay noqonaysaa wasiirkuna wasiir waa fasaxan tahay horta waxaan idin sheegayaa guddiga amniga xaq uu leeyahay inuu u yeerto wasiirka amniga laakiin waxa ay lowdeen inay 20 xildhibaan mooshin gudbiyeen oo ay taliyaha booliska u yeereen taliyaha booliska kaliya inuu imaadaan xaq ma laha wasiirka amniga waa inuu imaadaa oo ka jawaaba wixii amni ku saabsan taasuna ku imaaday sakan waxa ku soo haray jadwalkan aad sheegaysaan no jadwalka no iduma arin kartaan waa idin dhagaysay jadwalka aad sheegaysaan
intaas kadib waxaa mooshinka loo soo gudbiyey baarlamaanka ka dhashay buuq xooggan iyadoo la isku qabtay in cod loo qaado iyo in kale waxaana isku dhacay guddoonka iyo xildhibaanada dood dheer oo sababtay in kulanku uu istaago kadib waxaa mar kale cod la geliyey in mooshinka ajandaha wax ka beddelka dib loo dhigo ama in isla maanta laga doodo waxaana xildhibaanadu u codeeyeen in kulanka dambe laga dhigo doodan si la isugu soo laabto qol in dib loo dhigo gacanta taagin maanta bari saadam laga dhigo okay dejiya inta maartay in codka la qaado hadda maartay si socon gol gacanta taagin bas aad u mahadsantihiin maanta ajandaha dib u dhiganaynaa fadhiga hayno yaan soo imaanaynaa aad u mahadsantihiin si kastaba kulankan maanta ayaa ajandahiisu wuxuu ahaa la xisaabtanka xukuumadda waxaana kulanka ku sugnaa wasiirka amniga maxamed sheekh doodisho oo la filayay inay su'aalo weydiiyaan xildhibaanada baarlamaanka walow xitaa taas la isku khilaafay magaalada Jigjigana waxaa gabi ahaanba bas beele oo dhulka galay suuqa weyn ee lagu magacaabo Taiwanka halkaasi oo habeennimadii xalay ahayd uu dab ka kacay faahfaahinno dheeraad ayaa ka soo baxaya dab xalay habeennimo ka kacay suuqa lagu magacaabo Taiwanka ee magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida dabkan xalay habeennimo ka kacay suuqa Taiwanka ayaa waxaa sidoo kale lagu soo warramayaa inuu geystay khasaare baaxad leh iyadoo dhammaanba la sheegay inay bas beeleen meheradihi halkaasi ku yaalay wali dowladda uu hogaamiyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ma aysan ka warbixinin khasaaraha rasmiga ah ee dabkaasi uu dhaliyay dhinaca kale lama sheegin waxa sida rasmiga uga dambeeyay kicista dabkaasi qabsaday suuqa weyn ee magaalada Jigjiga ee lagu magacaabo Taiwanka dabkan ayaa bilowday qiyaastii 11 fiidnimo xalay iyadoo suuqani uu gabi ahaanba bas beelay oo aysan jirin meherad suuqan ku taala oo ka badbaaday dabkan inkastoo dadkii gurmidka u yimiday ay isku dayeen inay meheradahan ka guraan alaabaha yaalay haddana dadka intooda badani alaabtoodii ma aysan noqonin mid badbaada suuqan ayaa waxa uu ka dhisnaa cirifka magaalada Jigjiga waxa uuna ka dhisnaa jingado aan aad u habaysnayn taasi oo la sheegay inay keentay inuu si dhib yar dabku ugu faafo suuqan waxa kale oo sababay inuu dabkani sii faafo dabaylo xooggan oo dabka sii hurinayay kuwaas oo ka dhacay magaalada Jigjiga dhinaca kale gurmadkii ugu horeeyay ee dowlad deegaanka Soomaalida soo gaara ayaa waxa uu ka yimid magaalada caasimadda ah ee Hargeysa halkaas oo wafdi uu hogaaminayo duqa magaalada caasimadda ee Hargeysa Cabdikariim Axmed Mooge iyo sidoo kale taliyaha ciidamada dabdamiska Somaliland ay gaareen magaalada Jigjiga kuwaas oo qayb ka ahaa dadaaladii lagu doonayay in lagu soo afjaro dabkan ka kacay suuqa magaalada Jigjiga dowladdu ilaa iyo hadda ma aysan shaacinin waxa sida rasmiga uga dambeeyay inuu dabkaas ka kaco suuqan ku yaala magaalada Jigjiga sidoo kalena ma aysan shaacinin khasaaraha rasmiga ah inta uu leeyahay balse sawirada iyo muuqaalada laga soo dirayo suuqan ayaa waxa ay tilmaamayaan in gabi ahaanba suuqaasi uu burburay hantidii taalina ay bas beeshay madaxweynihii hore jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa war qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook waxa uu uga tacsiyeeyay shacabkii Soomaaliyeed ee hantidooda ku burburtay isagoo sidoo kalena maalqabeennada Soomaaliyeed ugu baaqay in gurmad degdeg ah loo fidiyo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Jigjiga hantidoodiina ku waayay dabkan ka kacay suuqaasi sidoo kale madaxweynaha Somaliland ayaa lagu soo warramayaa inuu wafdi u diray magaalada Jigjiga kuwaasi oo ka qayb qaadanaya gurmadka loo fidinayo shacabka Soomaaliyeed ee hantidoodii waayay xildhibaan Barkhad Baatuun oo ka mid ah golaha wakiilada Somaliland ayaa dhankiisa sheegay inuu ku deeqay mushaarkiisa si uu uga qayb qaato gurmadka loo fidinayo dadka ku hanti beelay gubashada suuqa Taiwanka ee magaalada Jigjiga shakhsiyan waxaan ballan qaadayaa inaan mushaharkayga aan ku bixin doono dadka dhibaatada dabkaas uu maalkoodii iyo meheradahoodiiba gaarsiiyey madaxweynaha waxaan leeyahay odayga qarankaa tahay odaygan ummadda hogaaminayaa tahay waxaa inoo muhiima guddiisu dhafa inuu madaxweynuhu sameeyo qaadhaan ballaaran la ururiyo gobonnimo la sameeyo taa inagu horseedaanu ka noqono kooxda al-shabaabna waxay weerar gaadmaha ku qaaday ciidamada Itoobiyaanka ee ku sugan gobolka Bakool halkaas oo lagu soo warramayo in maanta uu ka dhacay dagaal saacada qaatay oo u dhaxeeya labada dhinac Itoobiyaanka iyo sidoo kale kooxda al-shabaab waxayna dadka deegaanku sheegayaan in hubka noocyadiisa kala duwan la soo adeegsaday khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa sidoo kale la soo tabinaya warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerar ku bilowday qarax miino oo maanta lagu qaaday kolonyo ka tirsan ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka ADMIS
kuwaas oo ku sugnaa gobolka Bakool ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed. ciidankan oo watay gaadiidka dagaalka ayaa lagu qarxiyay inta u dhaxaysa degmooyinka Rabdhuure iyo Waajid, waxaana kadib xigay dagaal toos ah oo u dhaceeyay labada dhinac waa Itoobiyaanka iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab. wararka ayaa sheegaya in ku dhawaad dagaal socday hal saac uu dhex maray shabaabka weerarka soo qaaday iyo sidoo kale ciidamada Itoobiya, waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. labada dhinac waa ciidamada Itoobiya ee ka tirsan howlgalka ADMIS iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab oo siyaabooyin kala duwan uga hadlay dagaalka ayaa guulo waaweyn ka kala sheegtay, balse ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijin kara khasaaraha rasmiga ah ee soo kala gaaray labada dhinac. xaaladda ayaa weli cakiran, waxaana howlgallo culus ay ka socdaan agagaarka magaalada Xudur, halkaasoo ay isku ballaariyeen ciidanka dowladda iyo kuwa Itoobiyaanka ee la weeraray. sidoo kale weeraro kale oo qorsheysan ayaa xoogga kooxda Al-Shabaab waxa ay ku qaadeen saldhigyo kale oo ay ciidamada dowladda iyo kuwa ADMIS ku leeyihiin degmooyinka Qoryooley, Baraawe iyo deegaanka Janaale oo ka wada tirsan Shabeellada Hoose. waxaa jira weerar kale oo ay ka hortageen ciidamada ADMIS oo isna ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Baladul Amiin oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. afhayeenka ciidamada howlgalka ADMIS Korneel Cabdullaahi Xasan Janaale oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa shaaca ka qaaday inay uga hortageen weeraro abaabulan oo ay kooxda Al-Shabaab la damacsan yihiin ciidamadooda, sida uu hadalka u dhigay. Korneel Cabdullaahi Xasan ayaa shaaca ka qaaday in howlgalkan ay ku dileen ugu yaraan 2 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab, isla markaasina qayb ka ah weerarka gaadmada ah ee ay ciidamada dowladda iyo kuwa ADMIS ku qaadeen. dhammaan weeraradan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan la filayo inuu ka bilowdo dalka Soomaaliya wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, kaasoo ay ka qaybgalayaan dalalka dariska ah oo ugu horeeyaan ciidamada Itoobiyaanka ah, kuwa Jabuuti iyo sidoo kale ciidamada ka tirsan ADMIS ee dalka Kenya. ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waxa uu ka dhawaajiyay in dalkiisa uu booqasho ku tagi doono madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin, iyadoona booqashadaasi aad loo ilaalin doono sida uu Erdogan u sheegay, xilli madaxweynaha Turkiga uu kala dabqaadaya Ukraine iyo sidoo kale Ruushka. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa qorsheynaya safar naadir ah oo ku tagaya dalka Turkiga bisha soo socota, sida uu shaaca ka qaaday madaxweynaha dalkaasi Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. Mr. Erdogan ayaa hadalkan ku sheegay shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga kadib wadahadal uu la yeeshay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. madaxweynaha Turkiga ma uusan shaacin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan waqtiga booqashada Putin, laakiin wuxuu sheegay suurtagalnimada heshiiska maxaabiis isdhaafsiga ee Ruushka iyo sidoo kale Ukraine ay ka mid yihiin arrimaha laga wada hadli doono marka uu yimaado Turkiga. waxaan rajaynaynaa inaan dhowaan natiijo ka heli doono arrintan, ayuu yiri madaxweynaha dalkaasi Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. Putin iyo sidoo kale Erdogan ayaa hore wada hadal ugu yeeshay dalka Kazakhstan bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. madaxweynaha Ukraine Zelensky waxa uu sheegay in uu sugi doono natiijada ka soo baxda heshiis kasta oo maxaabiis dhaafsi ah ka hor inta uusan faallo ka bixinin, laakiin waxa uu intaas ku daray waxa aanu u shaqaynaynaa soo celinta maxaabiista siyaasadeed. madaxweynaha Ruushka ayaan booqanin dalalka NATO tan iyo markii uu bilaabay duulaanka uu ku qaaday Ukraine bishii Febraayo 2022, balse waxa uu booqashooyin gaaban ku tagay dalalka Iran bishii Luulyo ee la soo dhaafay iyo sidoo kale dalka ay saaxiibaha dhow yihiin ee Belarus bishii Diseembar. dalalka reer galbeedka ayaa cunaqabatayn saaray dalka Ruushka, halka maxkamadda caalamiga ee dambiyada ee loo yaqaan ICC ay soo saartay warqad lagu soo xirayo Putin oo lagu eedeeyay dambiyo dagaal ee ah inuu Ruushka si sharci darro ah uga tarxiilay caruur u dhalatay Ukraine intii uu socday dagaalkaasi. laakiin inkastoo ay jiraan xiisado iyo sidoo kale xubinimada Turkiga ee NATO, Mr. Erdogan waxa uu ku dadaalay inuu sii wada xiriirada labada dal ee Ukraine iyo sidoo kale Ruushka intii lagu jiray khilaafka. Turkigu kuma biirin cunaqabataynta dhaqaale ee dalalka reer galbeedku ay saareen dalka Ruushka, balse waxa uu hubsiiyay dalka Ukraine, waxa uuna diiday isku daygii Ruushka uu ku doonayay inuu ku qabsado dhulka reer Ukraine. ICC-da ma lahan ciidamo boolis oo gaar ah. khubrada ayaa hoos u dhigay rajada laga qabi lahaa in Putin la soo xiro mar dhow. Mr. Erdogan waxa uu aad u daneynayay inuu sii wada dhexdhexaadinta labada dal, isagoo ku guuleystay heshiiskii sanadkii hore lagu ogolaaday in si nabad leh haruurka looga dhoofiyo dekedaha Ukraine kadibna la soo marsiiyay badda madow. nuqulka heshiiskaasi ayaa ku eg 17 bisha Julaay aynu ku guda jirno.
balse hogaamiyaha Turkiga ayaa sheegay inay socdaan dadaalo lagu kordhinayo heshiiskaasi. Madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa intii uu socday shirka jaraa'id ee uu la lahaa dhigiisa dalka Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu sidoo kale taageeray in Ukraine ay ku beertanaato marka uu dagaalku dhamaado. Waxa uuna sheegay inuu sii wadi doono dadaalada uu doonayo inay wada xaajoodka lagu dhameeyo colaadda ka jirta Ukraine iyo Ruushka dhexdiisa. booqashada Putin ee Turkiga ma aysan xaqiijin Kremlin-ka dalkaasi Ruushka, balse waxaa la sheegayaa inay wuxuun ka jiri karaan warka uu sheegay madaxweynaha Turkiga oo saaxiib dhow la ah dhigiisa dalkaasi Ruushka Vladimir Putin. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warkii caalamka iyo Soomaalida oo si toos uga daawanayseen Magan Media. Anigu Cabdulqaadir Maxamed aan idiin waramayay. waxaan kaa codsanaynaa haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad booqato baraha aan ku leenahay Facebook iyo YouTube inaad rukumato si aad ula socoto warbixinada iyo sidoo kale dhacdooyinka caalamka ee aan si maalinle halkaas ugu gudbino. sidaas iyo nabadgelyo.